dowladda Sweden ayaa ka dhawaajisay in ay adkay doonto shuruudaha lagu qaato dhalashada dalkeeda, waxayna soo saartay shuruudo adag oo ku cusub dalkaasi. Qodobada ugu muhiimsan waxaa ka mid ah in qofka uu deganaado dalkaasi Sweden 8 sano ugu yaraan, halka ay hadda ka ahayd 5 sano oo kaliya. waxaana intaa dheer in uu qofku ismasruufo oo uusan dowladdu ka helin taageero nololeed wax ka badan 6 bilood wadarta guud ahaaneed 3 sano ee la soo dhaafay ka hor inta uusan codsan dhalashada waddankaasi. waxaa kaloo looga baahan yahay qofka inuusan dambiile ahayn oo aan deen lagu lahayn, sidoo kalena uusan soo marin xukun xabsi ah. booliiska iyo hay-adaha amniga dalkaasina aysan u arkin codsadahani inuu khatar ku yahay amniga dalkooda. wasiirka socdaalka dalka Sweden Johan Forsell ayaa sheegay in waqtigii jinsiyadda la qaybin jiray ku dhawaad shuruud la'aan ay dhamaatay, wuxuuna intaa raaciyay in muwaadinimadu ay tahay wax lagu dadaalo oo rasiid fiican loo samaysto loona shaqayso oo bulshada wax lagu soo kordhiyo. guud ahaan tareemadii isaga kala gooshi jiray magaalooyinka Trondheim iyo Bodø ee dalka Norway ayaa la hakiyay oo aanan shaqay doonin maalmaha Talaadada iyo Arbacada kadib markii ay soo wajahday cilado ku saabsan dhanka wadooyinka oo ay sababeen cimilada sii xumaanayso. shirkadda tareemada SJ ee dalka Norway ayaa fiidnimadii xalay ka dhawaajisay in khataraha dhulgo'a iyo cimilada sii xumaanaysa awgeed ay joojiyeen dhammaan tareemadii aadi jiray ama isaga kala gooshi jiray magaalooyinka Trondheim iyo Bodø maalmaha Talaadada iyo Arbacada. Harry Kurslund oo ah afhayeenka shirkadda tareemada ayaa sheegay in marka aynay habbooneen in tareemadu la wado ay tahay in la joojiyo isu socodkooda sida uu hadda dhacday. waxaana sheegay in ay hadda cilad badan iyo dhibaatooyin ay ka taagan yihiin wadada Motion iyo Bodø. isbeddelka cimilada ayaa saameyn xoogan ku yeeshay guud ahaan qaaradda Yurub, wuxuuna hakadgeliyay isu socodka gaadiidka kala duwan ee cirka, badda iyo dhulka. shirkadda TikTok oo waayadan dambe uu kiisas dacwo oo lagu mamnuucayo uga furnaa dalka Mareykanka ayay warar soo baxaya sheegayaan in haddii maxkamadaha dalkaasi ay soo saaraan go'aan kama dambaysa oo lagu mamnuucayo TikTok ay suurtagal tahay in laga iibiyo qaybta Mareykanka Elon Musk oo ah milkiilaha X ama Twitter iyo shirkado kale oo isgaarsiineed. hayeeshee shirkadda TikTok ayaa weli raajicinaysa oo rajeynayso in maxkamadda sare ee dalkaasi Mareykanka soo farageliso go'aankan uu ku joojinayo maamulka waqtigiisu sii dhamaanayo ee Biden hogaamiyo ka oo uu ku mamnuucayo shirkaddan. mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa rumaysan in shirkadda TikTok ay awood u siinayso dalka China oo uu xifaaltan adag kala dhaxeeyo in uu basaaso oo uu macluumaadkeeda la wareego 170 milyan oo Mareykan ah oo isticmaala aaladan TikTok. habeennimadii xalay oo Talaado ahayd ayaa wiil 20 jir ah oo qaba dhaawacyo culus waxaa si degdeg ah loola soo gaaray qaybta emergency-ga ee isbitaalka magaalada Oslo kadib markii uu ka badbaaday fal isku day dil ah oo ka dhacay guri ku yaala magaalada Oslo. booliiska ayaa sheegay in nin 40 jir ah ay u soo xireen kiiskan, waxayna intaa ku dareen in ay ninkani hore u garanayeen oo uu haysto dhalashada dalka Norway uuna degan yahay magaalada Oslo. Anna Alrik Solom oo ah madaxa qaybta baarista dambiyada culus ayaa sheegtay in dad kale loo soo xiray kiiskan ayna sii wadayaan ururinta macluumaadka, cadeymaha iyo wareysiyada markhaatiyaasha. shilkan ayaa ka dhacay gudaha guri ku yaala magaalada Oslo, waxaana si degdeg ah ugu soo gurmaday oo goobta u soo gaaray ciidamo aad u fara badan oo wata ilaa 11 gaari oo boolis iyo ambulance isugu jira. halka ay wararka ugu door karoon maanta idinkaga imaanayeen waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayaa anigoo ah Cabdullaahi Shiine.